حتى وددي لا هلي horumar lagu gaari lahaa dawladdu hana tooxi qaran inay gudataan hubnaayay inay gudataan hubnaayay hana tooxi qaran inay gudataan hubnaayay inay gudataan hubnaayay horumar lagu gaari lahaa dawladdu hana tooxi qaran inay gudataan hubnaayay wasaaradda caafimaadka agaasimaha guud wasaaradda caafimaadka hay'adda World Vision agaasimaha isbitaalka Garowe shaqaalaha caafimaadka bahda meediyada waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta waxaan halkan u taaganahay sida u jeedeen markii horeba in lagu dhagax dhigo shaybaar takhasusiya oo loogu talagalay in lagu baaro cudurka qaaxada dadka la qabsada daawada caadiga aan hadda qaadano shaybaarkan runtii muddo dheer buu soo socday hawshiisu alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta waa la dhagax dhigay sida ogtihiin waxaan rajaynaynaa inuu wax badan nooga qabto dhibaatadii naga haysatay inaan candhuufta u dirno wadamo fogfog oo kharash badanna ku bixi jiray waqti badan naga dhumi jiray oo marka bukaanadeenu ay si toos halkan u yimaadaan oo go'aan looga gaaro inuu qofkaasi yahay qof TB caadi qaba iyo inuu yahay qof qaba inuu la qabsaday jeermiga ku jiray daawada normalka adkaysi uu yeeshay meeshu maadaama ay waqti iska yara kulul tahay waxaan ku soo dhaweynayaa laftigiisa ninka la yiraahdo Dr. Cabdisamed oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka Garowe inuu isaguna erayadiisa ku daro runtii maanta waxay noo tahay farxad aad u weyn in halkan Garowe laga dhagax dhigayo shaybaarkii referensiga ahaa ama khaaska u ahaa baaritaanka cudurka TB-da qaybtiisa ugu dambayso runtii qofku markuu adkaysi u yeesho ama uu la qabsado dawada TB-da runtii cudurkaas oo ah cudur bulshada halis u ah insha Allah waxaan ku faraxaynaa farxadayda sii kordhinaya in uu yahay shaybaarkaas mid bulshada u soo kordhinaya adeeg runtii ay dib badan laga mari jiray sidoo dhakhtarku sheegay sidoo kale inuu yahay mid bulshada ilaalinaya oo ka ilaalinaya cudurkaas halista ah oo TB waa TB oo dawadeedu way sahlan tahay 6 bilood baa la qaataa 9 bilood baa la qaataa laakiin kan waa mid ka sii adag qofku markuu 9 bilood inta dawada qaato dawada ay xotari weydo oo dawada ay u noqoto biyo u cabayo kale to bakteeriyadii ama cudurkii hayayna uu san dawada ku dawoobayn runtii waa arrin halis waxa ka sii halisan oo ka sii adag qof alla qofku qaadsiyo inuu la mid noqonayo saadarteed bulshadii waxay noqonaysaa bulsho aan laga daweyn karin cudurka TB-da marka insha Allah waxaan rajaynaynaa shaybaarkan maanta halkan lagu dhagax dhigay inuu noqdo mid bulshada ilaaliya oo ka ilaaliya cudurka halista aan dawada lahayn ama dawadiisu ay adag tahay isla markaana uu noqdo mid adeeg u fududeynaya bulshadii oo adeegyadii kale ee caafimaadka laftigooda ka qayb qaadanaya waxaana runtii ay noqonaysaa in mid walaaliya bulshada oo ah mid ka ilaalinaya cudurkaas halista ah runtii arinta dhibta jirta waxay tahay dawada lagu daweeyo dadka noocaasi wax sahlan ma aha inagu aynu kari karro ama aynu keensan karro ma culayskeedu konta jeer buu ka culays badan yahay daweynta TB-da caadiga runtii farxadaas ayay noo tahay bulshadeena inaan la faraxno bulshadeena ay ku faraxno adeegga noocaas waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan u mahadceliyo wasaaradda caafimaadka oo wasiirka ugu horeeyay wasiir Cabdinaasir waxaan kale u mahadcelinayaa hay'adda runtii naga caawinaysa dhismahaas iyo hirgelinta adeegaas iyo waxtarka arinta inta leeg inay u soo kordhiso bulshadan runtii aad bay ugu mahadsan yihiin ciddii u dadaashay ciddii ka qayb qaadatay ciddii raadisay ciddii dhaqaaleeda ku bixisay intuba way mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa insha Allah bulshadeenu inay noqoto bulsho ka faa'iideysata oo waxtar u yeesha waxna u soo kordhiyo waana mahadsantii Honorable Minister Dr. Abdinasir Osman, Director General of Health, Dr. Hersi, the National TB Program Manager, Dr. Ali Hassan Osman, all protocols observed. Good morning, Subonaksan. Excellent. My name is Walter Muhwana. I work for the Somali World Vision TB program, and we have been working with the TB program in Puntland for the last 12, this is the 13th year.
from 2004. We also work with the other 2 republics. So in total we are running, as of now, 86 TB management units. Out of those, 15 are in the Puntland state. The TB incidence has dropped from 2004 when it was 285 per 100,000 population. It has now dropped to 274 per 100,000 population, thanks to the support we are having from Dr. Ali Hassan Osman and his team here in Puntland, which is really very good. We are here today because of the issue of multi-drug resistant TB. The Greater Somali has one of the highest MDR TB burdens in Africa and the 4th in the world. We are talking about 5% of new smear positive cases being MDR TB positive, and 44% of retreatment cases being MDR TB positive, which is really very, very high. So this is quite a high burden. Now, as a program, we have been taking this challenge very seriously. In September of 2013, we set up the MDR TB services in Hargeisa, Somaliland. And in December of 2015, we did the same in Mogadishu. So we are really very pleased to have the MDR TB services being commissioned and being launched here in Garowe. And we really want to thank Honorable Minister and his team for the support that they've been giving us. The Culture Lab, for which we have laid a foundation today, is going to cost US dollars 650,000, which is quite a very 650,000 US dollars, which is quite a big amount. And we believe that we are going to work together with the Ministry of Health so that we can make this a reality. At the moment, we are having about 382 patients in the whole of the Somali countries. And out of this, you'll notice that if you go to Hargeisa, where we have got about half of these, half of them, about 95, come from Puntland. So you see, this is a very big burden for the population because they have to travel all the way to Hargeisa so as to seek care, and this affects even their livelihoods, because then we have what we call the catastrophic cost, whereby they're using money they should have used for income and educating the children, and they are using it for going for treatment in Hargeisa. So we're really happy that once we have this culture running, then the people will benefit. Thank you very much. Thank you so much. waxaan kusoo wareejinaynaa agaasimaha guud ee caafimaadka si uu hadhowna ugu wareejiyo wasiirka. بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرك وزارة عافماتك agaasimayaasha wasaaradda caafimaadka halkan taagan iyo agaasimaha cusbitaalka Garowe, mas'uuliyiinta ka socota hay'adda World Vision iyo bahda warbaahinta, dhammaantiin shaqaalaha caafimaadka, dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka hore aad iyo aad waxaan u mahadcelinayaa waaxda TB-da oo Dr. Cali Xasan kala joogo soo qaybinta barnaamijkan maanta halkaan inuu hirgalo. waxaan rabaa marka inaan wax yar ka sheego muhiimadda baalkaan u qabanayo iyo wax uu yahay. halkaan waxaan ku dhayn lab waxa la yiraahdo labka takhasuska loogu talagalay in baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo shaybaarka loogu talagalay in lagu sameeyo baaritaanada dadka TB-da qaba ee la qabsaday ama MDR loo yaqaano. wuxuu qayb ka yahay dhowr bari ka hor in lagu daafuray magaalada Gaalkacyo xarunta lagu daaweyn lahaa. tana waxay qayb ka tahay baaritaanka dheeraadka si loogu sameyn lahaa. waxaan aad u mahadcelinaynaa qolada Global Fund oo dhaqaalaha hadda intaas u sheegay ay Walter oo World Vision ka socday ku bixinaysa. waxaa laga kaaftoomi doonaa baaritaano loo diri jiray Uganda, markii ugu dambeysay hadda Hargeysa loo diri jiray ayaa laga kaaftoomi doonaa. qiimahaas uu sheegay waxa isku jira dhismaha iyo qalabayntiisa iyo waliba shaqaalaha in la tababaro oo ay ka shaqeyn doona. saddex qaybood ay isku jira dhismaha ayaa maanta la xidhigay wasiirku dhaxdhigay, qalabayntiisa ku xigta iyo shaqaalaysiintiisa. marka waa shaqo Puntland wax badan qabanaysa. laba sano ugu dambeysana ee wasaaraddu ay ku mashquulsanayd. aad iyo aad waa mahadsantiin. waxa ku soo dhaweynaya wasiirka soo inuu daafuro barnaamijkan.
agaasimayaasha wasaaradda caafimaadka kala duwan agaasimaha isbitaalka waa hay'adda Wolfish iyo ka soo qaybgalayaasha kale si khaas ah waaxda TB-da wasaaradda caafimaadka oo cali hogaamiyaha ka yahay waxa farxad weyn noo ah inaanu muddo dadaal dheer kadib ay noo rumowdo inaanu helo shaybaarkan sida aad maqlayseen shaybaaradu waa badan yihiin meel walba shaybaar bad maqashaan laakiin shaybaarkan wuxuu kaga duwan yahay sida maqlayseen waa TB-da caadiga ahayd dadka adkaysiga u yeeshay jeermigii daawada adkaysiga u yeeshay meesha kaliya lagu baari karo buu noqonayaa aad maqlayseen qofkii luqadda fahmayay maxaan ku raahday Wolfish markuu warbixinayay Walter dadka ugu badan oo adkaysiga u yeeshay dadka badi waxa loo diri jiray Hargeysa oo xarunta inuu ku dhow ay ahayd dadkaas boqolkiiba 90 wuxuu ku sheegay inay ka yimaadeen Puntland waa dib weyn oo waxa dareemaysaa intaas waa intii dad barbaaristimi inta aan baarista imaan qofkiiba intaasoo kun oo qof oo si qaadsiinayo bahal aan daawo loo hayn oo adkaysan u yeeshay daawadii dhibta ilaa waa garan karaysaa cudurkan haddaan ka hadlayno TB-da noocan wadamada qaarkood waxay u sameystaan xabsi South Africa waxaan maleynayaa Afrika ugu horeysay meel xabsi u sameyso qofkii adkaysan markuu TB-da u yeeshay xabsigaas dalaal lagu siiyaa xataa looma ummadda looma ogolaado inuu dhex galo caruurta iyo siligaas kale soo istaagan marka hooyadoodii la hadlayaan aabahoodii halkaas ay kala hadlaan macnaha waa halista u leeyahay sababta waxaan la daaweyn karin weeyaan shidadiisu haddii la daaweynayana uu muddo badan iyo kharash badan qaadanayo midkii haatan daawooba waxaan rajaynaynaa marka facility waa la samayn karaa meel waa laga dhisi karaa laakiin waxaan rajaynaynaa in facility-ga ama se dhismaha iyo cilmiga iyo aqoonta soo siyaaday in laga faa'iideysto oo ummadeenu aysan qarsan goortaynu way naqaanaayo TB-da waxyaalaha inuu ku fidiyo adkaysiga u yeeshay waxa weeye oo u yeelato waxa weeye tobanbari bil markaynu qaadano qofka caafimaadka xoogaa energy u dareemo abitaadka u furmo wuxuu leeyahay waa daawoobo faraha ka qaadaya daawadii mar haddii daawadii la joojiyana daawada jeermigaas waa bartay marka dambe se wuxuga tarto way adkaanaysaa waxa kaloo shidada kana waxa weeye farmashi inta la tago daawo iyo aan dhamaystirnayn kuurada aan dhamaystirnayn waxun la iska qaadanayo waad aragteen iyada kaliya maana daawooyin kale oo dhan hal qalajisa iga gad ma qana qalajisa wuxuu yahay farmashiyaashan ka baran luqadda hal qalajisa iga gad carrabayo ragga prescribe gareeya waa maqlayaan bahasha baan u malaynayaa bahasha waxa la rabaa inteena ilaalinta ummadeeda waxa kamid ah inaan la iska qorin daawo la iska nasin qofku haddii aad isbitaaraysid laba asbuuc daawo antibiotics daawadii wax ka tari weydo waxa ugu horeeya isbitaaraynaysa uu qof darayna iska leeyahay waxa ugu horeeya isbitaaraysa waa inuu noqdo TB waa inuu soo dirtaa xarumaha atraadaysa soo baar not in daawo la isaga qoro mar walba lagu celiyo isagana la kharash gareeyo waxaan rajaynayaa si weyn inaan uga faa'iideysano labada xarumood oo midna tahay baaristii midna tahay tii lagu daaweynayay sidaasna dadkan uu kaga kaftoomayo socodkii dheeraa ee uu magaalooyin kale u aadayay iyo baaritaanka dheeraa meel u aadayay aad baan u mahadsantahay mashruuca dhismihiisuna soconaya